sheekadan waxa la yiraahdaa awoodda aamusnaanta. Joe waa oday da'diisu tahay 75 jir. Waxa uu ku noolaa farxad iyo qoys qurux badan. Caruurtiisii way koreen oo way weynaadeen, waxaanay u kala hayaameen magaalooyin kala duwan si ay farxad iyo weliba mustaqbal iyo xirfad ay uga doontaan. Joe waxa uu ku noolaa tuulo xusuustiisa ku weyn oo ay ku geeriyootay haweeneydiisii ama xaaskiisii. Joe waxa uu lahaa 4 caruur oo uu awoow u yahay, kuwaas oo soo booqda xilliyada fasaxyada. waxay ahayd waqtiga fasaxa. Joe waxa uu si xamaasad leh u sugayay imaanshaha caruurtiisa, waxaana u diyaarinayay guriga caruurtu ay degi lahayd. waxa uu ku mashquulsanaa nadiifinta guriga, hagaajinta alaabta guriga, iibinta cuntooyinka ay caruurtu jecel yihiin, dharka ay caruurtu xidhan lahaayeen iyo wixii la mid ah. Mashquul aad u badan ayuu ku jiray, laakiin intii uu mashquulsanaa waxa uu waayay saacad uu aad u jeclaa. saacadda waxa hadiyad ahaan u siisay xaaskiisa oo dhimatay markii ubadkii ugu horreeyay ay isu dhaleen. Joe aad ayuu u qiimeyn jiray ama uu jeclaa saacadda, waxaanay noqotay saaxiibada kaliya kadib dhimashada xaaskiisa. waxa uu ilaaway saacaddii ka maqnayd, waxaanu ku farxay inuu guriga ku qaabilo caruurta. maalintii xigtay ayuunbay ahayd markii isaga oo raba inuu maydho uu xasuustay inay saacaddu maqan tahay. waxa uu arkay saacaddii ugu dambeysay markii uu wax ku diyaarinayay maqsinka. wuu naxay oo aad ayuu uga xumaaday. caruurtii uu awowga u ahaa ayaa weydiiyey sababta uu caajisay, waxaanay weydiiyeen waxa uu dhibsaday. Joe laakiin waxa uu ku yidhi caruurtaydii qaaliga ahayday, waxaan lumiyey saacaddii ugu qaalisanayd ee aan abid haystay, weligayna nolosha ii ahayd. waxa hibe ii siisay ayeydiin oo waxaan waayey aniga oo guriga nadiifinaya. waxaana dareemayaa in uu qalbigaygii maqan yahay. Joe waa uu ilmeeyey, caruurtuna waxay u ballan qaadeen inay saacadda u baadhayaan isaga. mid ka mid ah hablaha uu awowga u yahay ayaa weydiiyey, awow ma xasuusataa markii ugu dambeysay aad aragtay saacadda ka hor intii aanay kaa lumin? Joe waxa uu sheegay, waxaan qiyaasayaa markii aan maqsinka nadiifinayay inay ahayd. caruurtu waxay go'aansadeen inay saacadda la raadiyaan oo ay ka baadhaan qolka. qolka ayaa waxa ka buuxay agab qashin ah, buugaag hadhaa ah, alaab guriga ku jajabtay iyo waxyaabo badan oo xafash ah. caruurtu waxay raadinayeen in ka badan 2 saacadood iyaga oo kaashanaya Joe iyo shaqaale kale, laakiin way waayeen. Joe ayaa gebi ahaanba qalbi jabay, waxaanu caruurta ka codsaday inay iska joojiyaan raadinta maadaama oo aanay waxba helin. caruurtu sidoo kale aad bay u murugoodeen, waxaanay u tacsiyadeeyeen awowgood. mid ka mid ah wiilasha uu awowga u yahay ayaa mar kale u guuray maqsinkii. Joe waxa uu weydiiyey sababta uu mar kale halkaas u aadayo. wiilkii ayaa ka codsaday dadka kale inaanay raacin oo ay iska aamusaan, halka kuwii kale ee ka yaryaraa ay yaabanaayeen. haddana way raaceen wixii uu yidhi oo way fuliyeen codsigii. ciyaalkii kale ayaa u yimi oo weydiiyey waxa uu samaynayo. wiilkii yaraa waxa uu ka codsaday inaanay buuq samayn. waxa uu meesha fadhiyey ilaa 15 daqiiqo, kadibna waxa uu ku cararay awowgii. waxa uu helay saacaddii oo si farxad leh ayuu Joe u siiyey. wuu yaabay oo waxa uu weydiiyey siduu ku helay. wiilkii yaraana waxa uu ugu jawaabay, aniga oo aan buuq iyo qaylo samayn ayaan meel fadhiistay, bakhaarkuna aad ayuu u aamusay. dhowr daqiiqo kadib oo waxaan maqlay dhawaqa sanqadha ah ee ay saacaddu samayso, sidaas ayaana saacaddii ku helay. Joe waxa uu habsiiyey ama laabta geliyey wiilkii yaraa. tanina waa awoodda aamusnaanta. haddii aynu istejinno oo aynu fikirno waxaynu keeni karnaa xal. maxay tahay xigmadda haddaba adigu daawade iyo murtida sheekadan aad kala soo dhex baxday adiga dhinacaaga?